yaasiin maxamed shide yaasineegaas gudoomiyaha gobolka Hawd iyo Mawlid Maxamed Nuur gudoomiyaha gobolka Zalala oo warbaahinta ugu warramay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxay ka dareen celiyeen xilka madaxweynaha Soomaaliland oo magacaabay iyaga oo sheegay inay hufnaan iyo halbeeg ay ku gali doonaan hawsha qaranka ee loo igmaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee magacaabay xilka barasaabka gobolka Salal madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay shaqada aad magacawday insha Allah bismillaah kariim waxaan ku shaqeyn doonaa sinaan iyo cadaalad dhamaantay aniga iyo tiimka kale insha Allah ila midka dadka inta soo hambaliyay ee noo soo ducaysana waxaan leenahay waad mahadsan tihiin insha Allah waxaan ku shaqeyn doonaa siyaasadda iyo boolisiga madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dalka u dajiyay inuu sharcigu sareeyo ay ka ahayd insha Allah taasaan ku daali doonaa xilku ii igmaday waa xil culus waxaan leeyahay hal jazaa'ul ihsaan illa al-ihsaan wanaagun baa lagu gudaa madaxweynuhu markuu qofte magacaabo uu xiligu madow waa wanaag uu ku wanaajiyay adna waxa la qofkana looga baahan yahay in uu qofku la yimaado shaqo hufnaan toosnaan waxaan rajaynayaa intaba inaan ka soo bixi doono waxaan ku faraxsanahay madaxweynuhu gobolka uu magacaabay Hawd degmada Beelgubadle waxaan aad ugu faraxsanahay waa gobolkii dhalay Soomaaliland gobolkii dhalay weeye bulshada ku noolina waa bulsho sooyaalka taariikheed marka leego ay ka soo baxeen rag dhintay iyo rag nooliba dad taariikhda Soomaaliland magac ku leh markaa aad baan ugu faraxsanahay xilka uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aadna waan uga mahadnaqayaa